السلام عليكم كلن وناكسن صاحب الكسر وهذا أقول سويدار سجا سند لها اللحاد علم بارس الصوماليات اللوسو قابية أكسوس 2020 أو سوق من قابية معدك علم بارس الصوماليات أو كترسن جامعة مقدشو أقول سويدار سجن ومدل علميات أو سند لها وحلده فري سند كي لبده يكون هي أفريقيا طبعاً waxaa ka qayb qaadanaya aqoon-yahano iyo cilmi baarayaal ka kala tirsan jaamacadaha xarumaha cilmi baarista iyo guud ahaan waxgaradka bulshada oo kala jooga geeska Afrika iyo qurbaha intaba marka laga tago barnaamijkii bilowga ahaa barnaamijyada kale waxay ku baxayaan sanadkan qaabka Zoom-ka iyo Facebook oo toos ah markaa waxaa lagu soo bandhigayaa ku dhawaad 30 daraasadood oo isugu jira arrimaha waxbarashada, caafimaadka, dhaqaalaha, bulshada, shaqo abuurka, arrimaha dhalinyarada iyo kuwa kale. Halku dhaga sanadkan waxa uu yahay dhabar adayga iyo aragti dheerida xilliga dhibaatada. Mawduuceena kulankan waxa uu yahay culeysyada iyo caqabadaha haysta daabacadda faafinta buugga iyo xaaladaha ku xeeran ama ku hareeraysan barnaamijka waxa ay noo soo gudbinayaa afar hadal jeediye ama afar mudane waxa ugu horeeya mudane Cabdullaahi Raage oo lagu naanayso sayidka martida marka hore haddii aan soo dhaweeyo hadal jeediyaasha oo wax yar aan faallo ka bixiyo ama aan idin yar baro sayidka waa macallin hore turjume qoraa dhaqaalaha iyo siyaasadda waxa uu ka bartay jaamacadda Camuud sidoo kale waxa uu islaamka iyo afka carabiga ka bartay macadka Saylac Cabdullaahi wuxuu ka soo shaqeeyay tacliinta faraca Boorama ee jaamacadda Islamic Online University ayuu bilaabay مسؤول ka noqday sanadkii 2015 muddo waxa uu ka shaqeynayay arrimaha dhaqanka iyo hawlaha lagu horumarinayo akhriska iyo qoraalka wuxuu la aasaasay iyo maamulba ka yahay baraarug bookis iyo sidoo kale agaasimaha waxa uu yahay agaasimaha fulinta ee xarunta Hargeysa taas oo qaabilsan baaritaanada iyo daraasaadka ama daraasadaha qoraalada uu qoray waxa lagu faafiyay shabakado kala duwan kuwa Soomaaliyeed iyo kuwa Carbeed sida barnaamij Al Jazeera ka baxay oo ku saabsanaa aroosyada Soomaalida waxa uu qayb ka noqday barnaamij 93 af lagu turjumay sanadkan 2020ka wuxuu daabacay buugga ciwaankiisa uu yahay jidkii loo soo maray falsafada runta ah oo ah buug yare falsafada ka hadlaya martideena kale waxa kamid ah Dayax Axmed Ilay waa macallimad iyo qoraad da'yar buugaagta ay qortay waxa kamid ah habeen eersi iyo anfariir waxa uu dheer buugaagta curinta sheekooyinka gaaban qoraanimada marka laga tago Dayax waa agaasimaha bahda Haldoor oo ah barnaamij lagu dhiirigeliyo dadka hawlaha wanaagsan bulshada u haya sidoo kale waxa ay xubin ka tahay akademiga goboleedka af Soomaaliga ee loo soo gaabiyo aga martideena waxa kale oo ku jira mudane Cabdullaahi Xasan Janna Gale waa bare ka tirsan jaamacadda ummadda kuliyadda cilmiga bulshada maadada population ama faafinta xilalkiisa kale ama waxyaabaha uu markaa hayo hadda waxa kamid ah gudoomiye madbacadda Som Printer waxa uu ahaa hirgeliyihii Muqdisho Public Library 2006 ilaa 2009 iskuulle iyo maktabado dadweyne ayuu tala bixiye ka noqday kuwaas oo ku yaala bariga dhexe iyo Britain waxa uu shahaadada masterka ka haystaa maadada la yiraahdo International Publishing ama faafinta caalamiga ah waxa uu markaas ka qaatay jaamacadda Brookes Oxford oo ku taala Britain
muddo ku siman 17 sano ayuu howlahan markaas ku howlanaa. martideena kale ee hadalka jeedin doona waxaa ka mid ah mudane cabdilatiif ismaaciil cali oo loo garan og yahay cabdilatiif geelle. waa aasaasaha baraarug buug, madasha baraarug oo ah mashruuc buug xul ah dalka keena, iyo heel barays oo ah xarun daabacadeed iyo faafin. wuxuu darajada mastereedka ka haystaa qorsheynta qaranka. 8 sano ee ugu dambeysay waxa uu ku howlanaa arrimaha la xiriira aqoonta. martideenu waa afar ciwaan oo kala duwan oo qof walba uu muddo kusoo dhex jiray ayuu jeedin doonaa. qofkiiba 10 daqiiqo ayuu haystaa. waxaa inoo xigi doonaa qaybta kale ee dadweynaha ama ka qaybgalayaasha. waxa ay fursad u haystaan inay faallo ka bixiyaan daraasadihii ay jeediyeen martideena ama inuu su-aal ka weydiiyo. barnaamijkeena sidaas ayuu noogu socon doonaa. ustaad mustafa ayaa nala jooga. haddii kelimo soo dhaweyna ustaad aad qaadanayso soo dhow, iyo haddii aan sii gudagalaynaba. بسم الله الرحمن الرحيم. وآد بما سنة أستاذ أحمد هادي. marka ugu horeysa waxaan salaamayaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha barnaamijkan kaga jira aaladda zoomka ama intooda ka daawanaysa ama kala socota Facebook live. sidoo kale waxaan salaamayaa aqoon-yahanada kala duwan ee aqoon wadaageenan maanta inoo soo jeedin doona inoo wadaagaya ustaad cabdilatiif geelle, cabdullaahi raage sayidka, dayax axmed hiley, ustaad axmed haadi oo inoo xiriirinaya, iyo cabdullaahi sheekh muuse janna kale oo weli khadka soo gelin laakiin aan rajaynayno inuu dhowaan inagu soo biiro. dhammaantiin aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin. waxaan idinkaga mahadnaqaynaa waqtiga aad u hurteen diyaarintii barnaamijkan aad soo diyaariseen iyo barnaamijka xilligan aad ku jirtaanba iyo aqoontiina aad la wadaagaysaan saaxiibadiina kaleeto. mawduuca aqoon wadaageennu uu maanta ku saabsan yahay falanqayn doontaan waa faafinta daabacaadda iyo faafinta buugga. buuggu mar walba wuxuu lafdhabar ka yahay aqoonta faafinteeda. markaynu eegno bii'adeenna Soomaaliyeedna culaysyo ayaa haysta. culaysyadaa haystaa marka waxay keenayaan in buugga faafitaankiisii culayskaas in uu isdhimo tiradii. culeysyadaas marka waxay u baahan yihiin in la furdaamiyo wax laga qabto. si loo furdaamiyo wax looga qabtana waxaa lama huraana in bal marka hore culeysyadaasi maxay yihiin la isla fahmo. marka fadhigeennan maanta waxaan rajaynayaa inuu culeysyadaasi tilmaamo waxa ay yihiin, talooyinna ka bixiyo sidii culeysyadaas wax looga qaban lahaa. waa laga yaabaa in muxuu ahaa waa la hubaa, lagama yaabee waaba la hubaa inaan hal kulan iyo hal fadhi una ku filayn. laakiin maadaama qorista bugaagta ay isu soo tarayaan, daabacaaddooduna ay isu soo tarayso, laakiin markiiba gaar ahaan dadka wax qoree dhalinyaradii ay dareemeen culaysyo dhinaca daabacaadda iyo faafintii ah, iyo guud ahaan qorayaashuba, arrintaas in la baraarujiyo, la isu tilmaamo dhibaatada iyo khalalku meesha uu ka jirana farta lagu fiiqo, wixii talooyin iyo furdaamin ahee loo samayn karana la isla falanqeeyo, laga baaraandego, markaana looga howlgalo sidii wax looga qaban lahaa. marka waxaan rajaynayaa kulankiinan aqoon wadaagkiinan galabtu inuu arrintaasi ma dhammaystirayo, laakiin bilow fiicanna inuu u yahay, wax fiicanna inuu ku soo kordhin doono. mar kale waxaan soo dhaweynayaa dhammaanba ka qaybgalayaasha kaga jira zoomka ama Facebook live iyo aqoon-yahanada inoo soo jeedinaya. aad iyo aad nood mahadsantihiin. ustaad axmed haadi waa kugu soo wareejiyey. aad buu mahadsan yahay agaasimaha macadka ISOS ayuu ahaa. soo dhaweyntiisa ku mahadsan yahay. markan kalena waa kaa soo galay isna soo waan soo dhaweynaynaa. barnaamijkan ayaan toos u gudagalaynaa qaybtii koowaad oo qof walba la siinaya 10 daqiiqo. waqtiga si aanan u cunin waxaan markan ku bilaabayaa cabdullaahi raage sayidka. ciwaanka uu ku qoran yahay waxa uu yahay daabacaadda iyo faafinta buugga. intaynan u gudagelin culeysyada, maxaa loola jeedaa daabacaad iyo faafin? ahmiyadda ay daabacaaddu iyo faafintu u leedahay
qoraaga iyo akhristaha qeybaha ay ka kooban tahay daabacadda iyo faafintu ma jiraan faafiyaal isu taagay madbacadaha ama daabacadda si kale haddii aan u dhaho iyo fulinta si kale faafinta buugta Soomaalida dulmar guud naga sii daabacadda iyo faafinta buugga soo dhawow microfonka iyo masraxuba way ku sugayaan kuwaaga. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rajeynayaa si fiican la wada maqlayo dadweynaha ka soo qayb galay iyo hadaljeediyaasha kale igula qoran kulanka waan soo dhaweynayaa waan salaamayaa sidoo kale waxaan mahadcelin ballaaran uga celinaynaa macadka ISOS Institute of Somali Studies shirkan sanadlaha daraasadaha Soomaalida ku saabsan ee 6 sano ugu dambeysay uu soo waday oo ISOS doorkan waa shirkii lixaad aan ka wada warqabno taasina mahadcelin ayaan uga celinaynaa maamulka macadka iyo maamulka jaamacadda hawl yar ma aha in mashruuc intan leego kale la qabto kaba daran in la joogteeyo marka labadaas oo ku mahadcelinaynaa mawduuceena maanta haddaan soo gudagalo anoon mataqaanaa wax kale ku sii daraynin marka ugu horeysa faafinta iyo daabacaddu haddaan soo koobo istiraamo fikrad asaasi ka bixistirahdo waxaan isleeyahay waxa weeye processka ama nidaamka qoraaga marka laga yimaado oo ama cilmi baaraha oo ah qofka talabada ugu horeysa qaadaya waxa ka dambeeya jid dheer oo noocyo badan oo qaybo badan oo maxaan ku raahdaa suurto gelinaya inuu buugu dhasho inuu buugu ka yimaado qoraaga madaxiisa iyo gacantiisa oo uu tago akhristaha gacantiisa iyo madaxiisa processkaasi ama jidkaasi ayay tahay faafinta iyo daabacadduba waxaana ka kooban tahay qaybo badan oo marba qaabka loo dhiga ayaa loo qaybin karaa laakiin qaybaha ugu muhiimsan aan isleenahay waa dhabarta faafinta iyo daabacaddu waxa weeye horta daabacadda asal ahaan yani printingka caadiga mashiinka ama qalabka ama farsamada ayaa ku ka oo lafdhabara laakiin waxa iyaduna lafdhabar ah oo maxaan ku rahdaa marka daabacadda yani lafaha buugga daabacadda laga yimaado tifaftirka mashqadeynta maxaan ku rahdaa muraajacaynta ama hubinta ama kadib tegidda maxaan ku rahdaa sidoo kale qayb kale oo muhiim ah waxa wakiil ama maxaan ku rahdaa qareen haddii qoraagu leeyahay ama inuu yeesho ay tahay waxaa la mida iibgeynta suuqgeynta maxaan ku rahdaa dabbaridda ilaa uu akhristuhu qaadanayo oo uu helayo marka processkaas oo dhan ayaa qayb ka mida ama badankiisa markaas ku qabanno wuxuu u baahan yahay isku maamul ama isku dabarid ama farsamayn dadyowga marka ay khusayso shaqadaasi ayaa isku dabaridkaasi qaabilsan ama qofof ha ahaadaan ama shirkada ha ahaadaan hay-ada ha ahaadaan ama xarumo kale ha ahaadaan ama hay-ado dowladeed ha ahaadaan dadyowgaasaa faafiyayaal noqonaya faafiyayaashu inta badan waxa ay faafiyaal iyo daabacayaal haddaan isku qaadno waxa inta badan isku dabaridaan shaqada kasoo bilaabmaysa qoraaga marka uu nuqulka koobaad diyaariyo ilaa nuqulka ugu dambeeya akhristaha gaadhaya oo markaa intaan soo taxnaya oo dhan isku koobsanaysa shaqadaasi dadyowga kala duwan ee kala xirfada duwan yani farsamo yaqaanka daabacadda farsamo yaqaanka fikirka farsamo yaqaanka naqshadda farsamo yaqaanka maxaan ku rahdaa suuqgeynta iibiyaha shirkadda iibka ka shaqaynaysa rarka haddii gobollo ama dalalo kala gudbinayo maxaa ku rahdaa in qoraaga iyo buuggaba dadka la baro oo qayb xayisiisa ay ku jirto waxaasoo dhan ba ay shirkadii ama shirkadihii maxaa faafin iyo daabacaddu ay tahayna ka shaqeeyaan marka processkan wuxuu lasoo horumaray ama lasoo tadawuray inta ay farsamooyinka daabacaddu soo tadawurayeen waxa laga yaabaa iyo hore lagu xisaabtami jiray gacanta marka qoraaga gacantiisa iyo xaashi sameeyaha ama xilliyada haragga wax lagu qori jirayna kaba sii horeysa haragga farsamayntiisa iyo qalinka iyo khadka iyo intaasna processku ah mar dambe inay kusoo biireen xirfadlayaashii la odhan jiray waraaqinta ama warqadlayaasha oo gacanta ku maxaan ku rahdaa ku
ku naqlin jiray ama ku koobiyin jiray buugta kolba buug ama kolba kitaab loo dhiibo 2-3-4 koobi ilaa 10 ka sameeyo qofkii gacantiisa oo kaga sameeyo waana sababta aad u arkaysa مثلا kutubta quraatiga ama kutubta taariikhiga fiqiga ama xillo midka inuu kala nuskhada duwan yahay inuu kala nuqul la duwan yahay marka nuqulkii hebel nuqulkii hebel nuqulkii hebel waxa keenaya waxa jiray maxaan ku raahdaa waraaqooyin kala duwan oo buuga ka shaqeeyay ka inuu mar qofkani nasqiyo mar labaad qof kale nasqiyo ay laba shay ku kala duwanaadeen marka ama qof soo yar koobay ama faafaam erey ka booday ama wax qalday ama maxaan ku raahdaa wax dambe oo qoraal ku daray oo nuqulkii hore aan ka mid ahayn marka waqtiga kooban hadaan inta la kaga gudbo fikradda koowaad ama asaasiga shaqadan ay ku fadhidaan waa taasi waana fikradda in warqad laga dhigo fikradda in buug laga dhigo mudnaanta ay leedahay asaasiga ama lama huraanka ay u tahay waxa weeye oo shaqada muciga ah in processkaas oo dhan soo sheegnay la isku hayo marka laga yimaado in shaqooyinkan farsamo aanu qoraagu qabsan kareynin akhristuhuna samaysan kareynin in ay isku dabaridaan marka waxay farsamayaan soo tirnay wixii ka badan la midka ahba isku dabaridkooda iyo sameeyo iyo isku keenidooda ayay shaqadan qabanaysaa ahmiyadaas leedahay qoraaguna ma qabsan karo akhristuhuna ma gaari karo waxa kale oo ahmiyad leedahay in xuquuqaha kala duwan ay ilaaliso marka xuquuqda qoraaga ugu horeysa xuquuqda shirkadda mataqaana daabacaadda xuquuqda dadka mataqaana ka shaqeynaya processka waxa soo dhan xuquuqaha kala duwan in lagu habeeyo ayay ahmiyad leedahay oo shirkado iyo hay'ado iyo dad mataqaana oo u banbaxay marka ay ka shaqeynayaan qoraaguna waa helaya xuquuqdiisa akhristuhuna waa helaya xuquuqdiisa oo waxa ka xuquuqda akhristaha inuu helo buug maxaan ku raahdaa nidaamsan oo lacagtii laga qaaday oo qalma maada ahaan yani fikrad ahaan marka laga yimaado yani maada ahaan warqadda xaashida isaasashada waxa iyo wixii la xiriira waxa kale oo iyaduna ku jirta oo aan islaahay yani waa fikrad asaasiya badeecadeynta buugta inuu processka inuu abuuro anusan islaahay badeecadeynta buugta buugu marka ku jiro maskaxda qoraaga ama baadhaha waa cilmi waa fikrad waa aqoon uu u baahan yahay qofkan inuu biyo laakiin si uu u gudbo dadka ugu badanna u gaaro maxaan ku raahdaa isagana uga soo baxo waa inuu badeecad isku bedelo aqoonyahankuna sideedaba way adag tahay inuu aqoontiisa badeecad u bedelo marka in suuq laga abuuro halka oo la badeecadeeyo maadadaasi waa ahmiyad ay leedahay oo halka qofka aqoonyahanka ama qoraay kaga xisaabtamayo intee qof buuga u gaadhay intee qof fikradaad u gaadhay imse qofka ka faa'iidaystay uu kaga xisaabtamayo in ay cid kale oo kaga xisaabtanayso dadkaasi ay uga faa'iidaystaan intee buug la daabacaa loo baahan yahay meeloodii la kala geeya loo baahan yahay lacag intee leegin dadka la qiimeeya loo baahan yahay iyo wixii la xiriira waxa kale oo ahmiyad ay leedahay baan islaahay gaarsiinaysa marka faafinta gaarsiinta meel kasta oo buuga looga baahan yahay ama aqoonta looga baahan yahay waxa weeye waa ahmiyad shaqada fiilkan laga qabto waxa iyaduna ku jirta marka qaar waliba ay meesha soo gasho wakiilka qoraaga uu soo galo waxa ku jirta fikradda matalaadda qoraaga ama maamulidiisa maxaan uga jeednaa matalaadda qoraaga ama maamulidiisa qoraaga in مثلا oo Soomaali wax ku qoro deeto uu wakiilkiisu qaado oo afka qoraalka ama sheekada ama novelka sheekada ama cilmi baarista Ingiriis loo turjumo Ingiriis marka loo turjumo processkaasi Ingiriis yani Soomaali kaga tagay aqoontaasi Ingiriis ku tagayso waxa u baahan tahay matalaad qaanuuniya waxa u baahan tahay heshiisyo macna kontraadyo la kala galo oo qoraagu qayb ka yahay oo cidda hore daawacda qayb ka tahay oo cidda dambe tigmisa qayb ka tahay oo qoraaga maxaa u jeedaa daabacaadda dambe qayb marka in lagu matalo qoraaga maxaan ku dhaxlaa processka iyo in la maamulo laftarkeedaba oo maxaan ku marka qaar waxa dhacdo inuu qoraagu uu aqoontii hayo ama cilmiga hayo laakiin uu u baahan yahay farsamayaqaan ka saacida qoraalka marka dad waxa jira buugta loo yeeriyo garaaca waxa jira dad buugta laga duubo dib loo qoro
marka farsamooyinkaas oo dhanna waa hawlahaas oo ahmiyadahaasna waa ay ku jiraan waxaa kaloo ku jirta suuqaas markuu abuurmo inay macaash abuur ama muftaayad uga abuuranto dadka broseska ka shaqeynaya waxaan hubnaa haddii aanay dadka dhexda ka shaqeynaya ee farsamo yaqaanadii nashqadeeyaha leh ka fadhisaan kale nooc walba leh aanay helaynin abaalmarin noloshooda ay ku maamulaan oo kasoo gelaysa buugta kasoo gelaysa inaanay shaqadu soconin marka ahmiyadahaas iyo kuwo ka badan oo lagu dari karaba waa ay leedahay sida aan isleeyahay haddii aan hore uga sii socono si aan waqtiga aan uga faa'iideyno waa noocyo badan tahay haddaan qaybaha daabacaadda nidhaa way noocyo badan tahay laakiin kuwa ugu muhiimsan ama noocyada ugu muhiimsan ee iminka suuqa ka jira waxaa ugu horeeya daabacaadda akademiga marka masalan iminka macadkan isos wuxuu ka tirsan yahay jaamacadda muqdisho jaamacadda muqdisho hadday leedahay daabacaad maxaan ku idhaahdaa ama shirkad daabacadeed oo cilmi baarista ay sameeyaan aqoon-yahanada jaamacadda jooga iyo ardayda jaamacadda ka baxaysa iyo cilmi baarayaal kale jaamacadda ka tirsan hadday sameeyaan waxay noqonaysaa daabacadaasi daabacad akademiya marka jaamacadaha muhiimka iyo jaamacadaha badankooda waxay leeyihiin daabacado akademiya ku takhasusayna cilmi baarista jaamacadda ka dhacda ama jaamacadda lagu sameeyo ama dadka jaamacadda ka tirsan ay sameeyaan ay daabacdo waxaa kaloo jira daabacadaha professionalka ama waxyaabaha xirfadda daabaca masalan xirfadda qareennimada looyarnimada bugaag farsamo oo gaadhisa ama handbooksa xirfadda masalan nursingka handbook nursing ku saabsan shirkado badan waxaa jira professional publishers oo aan iyagu daabicin waxaan ahayd waxyaabaha professional ka masalan dadka qasabadaha ka shaqeeya in handbook loo daabaco qalabyada kala duwan ee qasabadaha la xidhiidha iyo magacdooda iyo liisaskooda iyo gaad oo kale loo sameeyo waxaa kaloo jira textbook publishers baa jira oo maxaan ku dhahdaa buugta tacliinta daabaca kuwa marka laga yimaado waxaa jira shirkado se corporate oo shaqeeya oo outsource sameeya yani cid kale halo male maqlaya waa go'ay laakiin waa lumala hadda okay halkii aan kasii wadno cilad farsamo dhacdan kaleeyahay kastoona si fiican u fahmin textbook publishers baa jira shirkado waxaa jira bargaininka ka shaqeeya in ayagu muxtawaha abuuraan contentka abuuraan oo masalan ay qof inta u tagaan ay kusoo dhaadhiciyaan fikrad dhowr qof isku geeyaan collection abuuraan laakiin aan iyagu publishers ahayn marka middleman oo kale ama dilaal oo kale shirkado kaloo daabacadeed u gudbiyo muxtawahaasi oo daabaca iyo qaybo kale oo daabacaada jira oo aad u fara badan laakiin labada iminka soo kordhay muhiimkaaba iyaguna jira oo aan rabin ka tago self publishingka waxaa la idhaha inuu qofku isagu wax daabacdo marka inuu qoraal ka sameeyo procesko dhan uu dadyo kala duwan marka ula tago qof ka fardhisaana tafakkira haddana ula tago haddana ula tago nashqadeeya haddana ula tago qof xuquuqdii soo diiwaangeliya haddana ula tago maxaan daabacaad madbacad ama printer ula tago loo daabaco intaasoo dhan intuu isagu isku samaysto kharashkana waxaaba isagu la wada baxa deetana buugii hadduu qaybinayo iyo hadduu qiimo jaban ku iibinayo iyo hadduu maktabad dhigayaba self publishingkaas isaguna jira waxaa kaloo soo kordhay crowd funding publishing qore qoraa shacbiyad leh ama dad maxaan ku dhahdaa ku taxan leh laakiin aan rabin shirkadaha waaweyn la tacaamulo marka inuu nooc buuga qoraya iyo nooca wax uu qoraya iyo waxaas intuu xaysiiyo dadweynaha usoo bandhigo oo idhaahdo buugtaasaan wadaa halayga maalgeliyo crowd funding la siiyo marka laba nooc in lacag loo shubo si uu u awoodo inuu daabaco isagu self publishing sameeyo iyo in buugga pre-ordering waxa la idhaha lasii dalbo intaanu soo bixin deetana dalabada hore number weyn hadday gaadhaan kharashkooda buugga lagu daabaco oo lagu socodsiiyo kuwa waxaa tusaale ka mid ah masalan qoraa soomaaliyeed oo cabdiladiif iga la idhaahdo waa xilliga ahayd baan xasuustan mid buugtiisa ka mida crowd funding publishingkaasoo kale ku sameeyey halkaa markaan marayno waxaa dhiman qodobka haddii bedankeeda leeyahay la xiriira daabacayaasha iyo faafiyayaasha soomaaliyeed ama shirkadaha soomaalida ka shaqeeya daabacaadda iyo publishingka markaynu laba marxaladood baan u qaadan karnaa in horta jirtayaashu waxay u taalmi jiraan laakiin haaba ayaa jawaabta kooban ay tahay laakiin jawaabta faahfaahsan waxay tahay in laba marxaladood loo kala qaybin karo tan iyo markii farta la ictimaaday farta la hirgeliyey
marxaladda hore oo daabacaad dowladeed ama dowlad wakiil ka tahay ama dowlad mas'uul ka tahay ama dowlad ka shaqaynayso ama cid dowladda ku xidhan ay leedahay ilaa 90 iyo wixii ka horreeyay ama daabacada akaademiya oo maxaan ku dhahdaa aqoon-yahano Soomaaliyeed banaanka wax ku daabacaan ba ayaa jiray hadda soo koobnay laakiin wixii intaa ka dambeeyay shirkado waxaa jira dabcan labada nooc ee soo sheegnayba inuu printer ah oo buug isagu daabaca laakiin farsamooyinka kala shaqo ku darsan hadday ugu badan tahay farsamada designka ama cover designka ama fildiga shaqadiisa ku darsada iyo publishers kale oo buugga ka kala wareega qoraaga ilaa ay mataqaana akhriyaasha ay soo gaarsiiyaan marka faafiyaasha isku dhamayska tiran leh ka dhowr shirkadood baa abuurmay oo nooca dambe ah wixii ka dambeeyay burburka kuwa nooca hore ee publisherka ah waxaa jira taqriiban magaalo kasta iyo gobol kasta iyo maxaan kula degmo kasta iyo tuulo kasta oo maanta publisher ama daabace publisher yaan odhan daabace xajmiga buug inuu soo saaro oo buug uu soo farsameeyo waa ka jira marka kuwaas ma tira koobi karno saameyntooduna way leeyihiin oo buwaag ka badan wixii la doono waqtigeeda laga sheegay ay meel kasta ku daabaceen laakiin waxaan rabay inaan xuso shirkadaha ugu muhiimsan intaan anigu la tacaamulay ama aan buugtooda arkay ama aan saameynta ay suuqa ku leeyihiin aan arkay waxaa ugu horeysa shirkadda ham publications la odhan jiray ilaa imika inay shaqayso ma hubo oo ay aasaastay anif sulaymaan oo ah xaaskii waa geeriyootay dhowr sano ka hor xaaskii guddoomiyaha aqalka guurta somaliland Salebaan Axmed Salebaan waxay ahayd dadkii ugu horreeyay ee Afrika u hawlgalay inay qoraalada akademiga iyo qoraalada akademiga ku garab dhow Soomaalida ku saabsan cilmi baarisha Soomaaliyeed iyo Soomaalida ah iyo kuwa Soomaalida ah inay sameeyaan ay daabacdo buug tayalana dabcan waa ka soo baxay shirkadeedaas waxaa jirtay Scanson iyo Bolt Festival oo ka marxalada dambeeyay labadooduna waxay geysteen maxaan ku dhahdaa contribution fiican weliba intaan la socdo Bolt Festival waxa ay taxanayaal silsilado buugeed oo ersan kayeer oo kale aan ka xasuusan karno oo 3 ilaa 4 sheeko oo isla socday lagu daabacay oo kamid tahay sheekada aanadii nageeyay iyo Ibrahim Hawdi iyo sheekada maxaan ku dhahdaa lab iyo Roge Cabdullaahi Cawad qolyahaasi sagaashamaadkii iyo bilowgii 2000 asaasnay waxa ka soo daba kacay hir kale oo xagga faafinta ama shirkadaha faafinta intaan la socono oo 3 shirkadood ay asaas u yihiin loox baras iyo granuug iyo hill baras oo uu nagala joogo dabcan sida hordhaca ku maqlayseen asaasaha shirkadda Cabdi Fille shirkadaha dambe waxay kaga duwan yihiin kuwii hore inay horta dhalinyar hagayso loox waxa hagaya محمد عبد الله عرفان جرانوق ده حاجة محمد يوسف هيل برسنا حاجة عبد اللطيف كيله شركة ضمن يعني أي حاجة سو أنا لابد شركة أنا كنت تستني مشاريع باوين أما دولت أما محن هذا أما مجال محن كنت ما ذكرنا هاي ده هتلاقيها بحي حلحلة صبح إن إمك يعني محلدا شركة أنا أحب العمل أنت أنا أقول السعودية توليدي نصودا لابد يكون يتوان كيلا لابد يكون يلاباتن كي ولي بشان تدمبي بدنتو باي أساسنيان كشركة دمبي دنيو تاجيسو لابد إنجليز كدقيهم حرمنا أي كل هذا هاي ذلك waxay noo suurtageliyeen inuu process-kan ka soo sharaxnay maxaan bixinay faafinta ee ka bilaabmaysa qoraaga laga wareega buugga ama shirkadda ku wareejiyo ilaa shaqadii laga qabanayay suuqeynta ee soo gaaraysay akhristaha inay isku xidhaan marka shirkadahaasi iyo dabcan kuwo kale oo laga yaabo inaanan anigu ku baraarugsanayn waxqabadkooda ama aanay soo gaarin oo laga yaabo dalku waa balaaran yahay ilaa maxaan ku dhahdaa Nairobi ilaa iyo Addis Ababa inay shirkado kale jiraan waa dhici kartaa laakiin saddexda shirkadood iyo saddexdii ka horreeyay saabintooda lixdaas waxay si fiican uga muuqataa maktabadaha shakhsiga ee qofkii buugriga ku haysta iyo maktabadaha publica ee dadweynaha iyo meelaha lagu dabo buugta lagu iibiyo si fiican uga muuqataa waxa ku soo gabagabeyn lahaa in aan hoosta ka xariiqo ah suuq samaynta ama lacageynta buugta shirkaddu waxay ciyaaraysaa roolka ah inay buuggii qoraagii wax ka siiso yani faafiyuhu wuxuu ka shaqeynaya qoraagii buugga maxaan kalaa macaashkiisa ka helo ama ugu yaraan ay
wax ka soo gaadhaan tifaftiro wax ka helo naqshadeeyo wax ka helo daabacaadu ay kharashkeeda qaadato iibgeeyu wax ka helo xaysiyu wax ka helo ugu dambayntana akhristuhu qiimo jaban ku helo marka intaasoo dhan in la isku keenaa waa masalo adagtaan leeyahay marka suuqyada kala duwanna waxay keenayaan masalan meel macaan daabacad tahay yahay meel kalena ay borosesku jaban yahay laakiin daabac